بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال dalkasta iyo si kastoo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij aanu idinka diyaarinay doorashada wadanka Kenya oo natiijadii kaba dambaysta ahayd haatan dadweynaha reer Kenya ay sugayaan in lagu dhawaaqo isla mar ahaantaana ay guddiga doorashada ay IEBC ay sheegtay in 7 cisho uu dastuurkoodu u siiyay falaqeeya ayaa saad arkaysaan bayla taagan waa Umar Shariif waa Dr. Umar Shariif oo isagu aqoon dheeraad ah u leh bulshada markaas meesha waxa weeye ku dhaqan Kenya isla markaana ah Kenyan Umar Shariif ku soo dhawow barnaamijkeena aan ku falanqeynayno marka hore waa Umar Shariif Dr. Umar Shariif waa public health ayaa ahayd inta aan dadweynaha u sheegay inagoo barnaamijkeena arrimaha doorashada kaga hadli doona maxaad ugu sii dari lahayd oo xagga waayo aragnimada iyo aqoonta waxa weeye maadiga waxaan ugu dari lahay doorashada waxa waaye mataqaana waxay ka dhaxaysaa ninka la yiraahdo Raila Odinga Amolo Odinga iyo waxay ka dhaxaysaa Ruto Ruto ay ka dhaxaysaa Umar intaan u gelin soo macallin baad ahaan jirin ma waxaan ahaan jiray عافية حاجة عافمات وزارة عافمات وليبا كينيات هوسبيتال وهاي waxaad tahay in badan baad deganayd gobolada markaas Kenya waxaad deganayd Navaja waxa kale aad deganayd gobolka waqooyi bari sida la socdo hadda waxaad joogtaa magaalada Nairobi marka bal hadii aynu eegno bal doorashada waxaad iga warantaa hadda doorashada Kenya waxaad la rajeynayaa in lagu dhawaaqo madaxweynaha marka bal xagee hadda wax marayaan waxay wax marayaan waxa way mataqaana doorashadii waxay dhacday maalintii Talaadada ahayd waxaana sharci ay u haystaan kuban guddigan IEBC waxay sharci u haystaan 7 beri gudahooda inay ku dhawaaqaan natiijada madaxweynaha iyo wixii kale oo mataqaana iyo kuwii baarlamaanka iyo governoriyalka iyo kulli kuwa soo dhan marka hadda waxay wax marayaan gabadhii bay taagan tahay gobol walba mataqaana oo laga soo doortay waa 290 iyo mudane ayaa mataqaana oo baarlamaanka hadda waxa la soo xareenaya natiijadoodii hadda maanta waxay hayeen waqtigan la hadlayno waqtigan la hadlayno waxay heleen 178 ayay heleen marka hadda waxa u dhiman adiga 120 oo kale hadda u hartay markay natiijada soo wada xarooto kadib ayaa marka lagu dhabaaqi doonaa doorashada ninkii helay labada nin waa Umar sida la socono Afrikaanku waa qabayl ay waxa weeye inkastoo axsaab ay tahay hadana si qabayliya kama mara marka bal waxaad ii sheegtaa waxa la lahaa madaxweynaha Ruto iyo Raila labada madaxweynaha ku tartamaya labaduba waxa weeye si Israa'iil bay u kaamigreen reerka hadda waxa weeye jagada hadda ku fadhiya oo Uhuru Kenyatta ka soo jeedo ilaa in badan bay iyagu haysteen marka bal hadii aad eegto gobolada ay degan yihiin Kukuyada oo aad waxa weeye markaas ugu loolameen waxa la codadku meel bay mareen xagee bay mareen maxay sababtay gobolada hadii aad noo sii cadeyso waxay mareen Kukuyada waxay mareen ayaga hal meel ay mataqaana laga bilaabo magaalada la yiraahdo Nakuru oo Central Kenya Nakuru ko ila Nakuru Muranga maxay magaceeda Nyeri Laikipia marka Meru Embu iyo Kirinyaga way iswada raaceen way taas waxa weeye Ruto way u rideen Ruto way u rideen waan gartay marka ninkan la yiraahdo Raila marka waxa kale Ruto u ridi qabiilkiisa qoliyaha la yiraahdo Kalenjin oo ayagana galbeed Kenya degan Ruto way ayagana u rideen waan gartay marka Raila wuxuu cod ka helay gobolkiisa oo la yiraahdo Nyanza oo Kisumu ay magaalo madax u tahay qoliyahan la yiraahdo reer galbeedka oo Baluuyada la yiraahdo oo Kakamega oo waxa ka soo jeeda ninkii Musalia Mudavadi iyo waxa way Wetangula ayaa ka soo jeeda meesha ayaga Ruto bay la jiraan laakiin ninkan uu ka wada qaatay kuraasti saddex kursi moog inta kale kuraasta baarlamaanka isaga qaatay iyaga wada qaatay halkaas markii hore laga dooran jiro caan uu ka ahaa labadan qof oo mataqaana jalwada oo Raila uu ka soo jeeda oo Kisumu ay magaalo madaxdooda tahay iyo kuwan kale oo Kakamega ka soo jeeda Baluuyada yiraahdo waa dad weligooda daris ahayo feerta isku hay
dagaal ba ka dhaxeeyay ما دقالك ما دحي أي وايس قربسان مر الله مركي دورشاد عدوا دين باي ودا كعان waxa la isku dhahaa geesge waxaa la isku dhahaa sameeji bay sameeji afka Soomaaliga waxa waaye seedi oo kale seedi bay isu yihiin marka waa isguursadaan geema kula dhahana maxay geema kuba la yiraahdo waa kuba martaqada kikuyada iyo meerooda iyo embudo waa community-gaas marka qaabkaas waxa way suxul faystaan ay weligood bacodkood meel mari jiray meel waka geema nimanka la yiraahdo marka hada Kalonzo Musyoka reerka uu ka soo jeedo oo ah mukaamada iyaga saan la socono iyaga la soo kala qaybsiin codkooda ayaga waxa ayaga kaambada waxay xulufo la yihiin isbahaysi oo Raila Odinga hagaaji ayaa mataqaana mid la yiraahdo Kalonzo ayuu ku jira oo mataqaana kaambadana aabeed marka ayaga 90% waxay u rideen Raila Odinga kaambada ay u rideen waatay bal markaynu eegno Soomaalidu inay qayb ay ka tahay dadka waxa weeyaan ka hadlay codkooda dhibtay bal iyaga halkee loo tiriyaa ayaga waxa loo tirinayaa Raila loo tirinayaa Wajar iyo Mandera iyo Garissa kulli Raila ay u rideen waa gartay siyaasiyiin waxay leeyihiin Soomaalidu oo aadan barre ducaale ka mid yahay سين لا سعنا هذا أيوه هو اللي مدحوين الروتو مدحوين كحيان الروتو أيوه مركزي نعم اللي حاجة سين راعي كريم بعض الناس ما يوم الميزان كله هو سياسة الصومال ما يبقول كي بس سجاشن صومالي وحي أريد ريلا ريلا أريد سيدا تي في كاركيني أما أيها ماشي جوا وما أرت ماشي جودة دور الشذا ماشي لقط ترناي تي في كسان كاركين صومالي وايس راعي بقول كي بس سجاشن وحي أريد نكلي يراد ريلا يصير وهاجا أنت هذه إنه بالفلقيت سيدا بالشدة حوية أي عددك حوية أو كلا خذين هذه إنه أنت كل أفنو واحد شرتي جودة دور الشذا هذه أصول نقولنا waxay mar sheegeen oo ay shaaciyeen in qalab markaas la galay xarunta weyn ee Bomas lagu tirinayo codadka in qalabkii istaagay saraakiil la xiray oo la lahaa UDA ay ka tirsan yihiin codkiina sidii loo waday telefishinadii laga saaray magaalada ay sheegay tirintii ay tirinayeen arrimaha soo kale soo waxa weeye ma iman karayaan khaladaad ma keeni karayaan سياسة حولين ما هو خلاد وين باي ياكي إيمان كروه ده وحال إسكو جاي متقنا نيول بوحه هلا إن لو متقنا وحي لو وعدي إن لو تريا ولا شيء مركا هدي متقنا أمر إلى حقيس أي نقطة أم يودي حاجة هذا روتو حقيس هذا أي نقطة هدي واحد أنت ماشي لا لقى لي ما عرفتي ضد واحد الوقبتي تا هدي متقنا ضد كل وقبتي iyo ruuto ilaankas ay saarmaysa halkaas ay saaraysa marka waana la sheegay wax saa ina jiraan wixina waa la qabtay alaabtii waraaqihii la waday iyo dadkii waa la qabtay marka xisaabteen halkeedii baa laga wada kuwa iyaga khadka laga bixi khadka ka baxeen khad bay ka baxeen umarow saan la socono mar kasta oo doorasho la qabto dadku cabsi fara badan bay muujiyaan baldii in badan oo soo joogtay doorashooyinka Kenya nin way aragna waa tahay kana soo shaqeeyay dawladda Kenya sanadkan maxaynu maleynaa waayo waxaad moodaa aad waxa weeye isbal in xagga codadka aad isugu dhow yihiin sanadkan waxaan u maleynayaa sidii hadda Raila uu ku dhawaaqay Ruto uu ku dhawaaqay Uhuruna wuxuu yiri hadda asaga madaxweynaha tagayn wuxuu yiri horta wax alla ninkii isku daya inuu wax khariba ama dhibaato keena ama dhagax tuur keena ama waxa dawladda tilaabad bay ka qaadaysaa si fiican marka waxa loo baahan yahay ninkii wax qoonsada oo mataqaana wax laga khalday lagu sameeyay ogaada waa inuu maxkamadaha galaa oo maxkamadaha ka dacwooda oo dadkii asaga mataqaana dadkii asaga u codeynay oo asaga ma supporterkiis ahayna inuu la hadlo oo yiraahdo meeshaas aan tagayna rabshadaha la iska day sanadkan hadda ugu rajo fiicanta laakiin markii 2007 iyo 2008 iyo aan wixii dhacay aan ogeyn iyo waxyaalo badan oo ka dambeeyay sanadkan waxaan u maleynaa ninka laga reebo laakiin ninkii asaga mataqaana wax qoonsaday oo inay wax ka maqan yihiin oo si khalad ay ga dhumeen ninka waa inuu maxkamadda tagaa hadda taas ayaa lagu heshay waa gartay Soomaalida bal ay eegina Soomaalida maxaa markaasi iyaga la gudboon oo maslaxadooda midkee ku jirta in wax weey uu helo horta Raila nin la tijaabi ma waligiisba mucaarad buu ahaa Rutona madaxweyne ku xigeen buu ahaa isaga jagada waa laga hasto Uhuru baa ka haastay si fiican marka hadda ma dhihi karna ninkaas hadda Soomaalidu wax u tari ma dhihi karna laakiin mar alla markay hadlayeen
oo ballanqaadkii iyo kambeeynkii ay sameynayaan labadaba hadee wax baan sameynaynaa Soomaalidu wax baan u tareyn ballanqaadii ay sameeyeen oo leeyihiin Soomaalidu waxba iyo mantaqana dadka laga tiri badan Soomaalidu ku jirto oo Turkaana qoliyaha la yiraahdo ay ku jirto oo booranta ku jirto oo mantaqana dadkaas wadooyin baa loo sameeynaya bacaalal biya loo suraya mantaqana caruurtooda iskuulka mantaqana bilaash ay ku baranayaan waxyaalo badan oo ballanqaad waa sameeyeen marka waa inaan aragnaa hadda ballanqaadka inuu dhab noqday inuu noqon doono waxay ku xiran tahay marka ayaga soo galaan waa gartay xilligii kambeynka ku jireen wadanka corruption baa aad u ragaadiyey waxaana inta badan Raila uu aad waxa weeye loo sheegay inuu la dagaalamayo corruptionka haddii noqoto dhanka waxbarashada dhanka ganacsiga dhanka waxa weeye infrastructure-ka xagga magaraysa dhismaha wadooyinka kale iyo oo kale inuu isagu waxa weeye aad waxa la dagaalami doono dastuurka wasaaradda cadaaladana uu siin doono magaraysa dhanka kale Ruto wuxuu dhahay wasaaradda cadaaladda way wasaaradda waxa weeye xaniban weeye oo aan u madax banaaneyn magaraysa ay sheeg dastuurka annagu aan xor baan ka dhigayaa buuli waxayba ku kaambeyn kareen bay kamid ah waxaan la socnaa hadda dollarku inuu marayo 12,000 boqolkii dollar 12,000 iyo 400 oo shilinka Kenya waa marba kadib uu sii socdaa maciishadii waxa weeye way sii qaaliyoobaysaa dadkii way iska bixin kari laayihiin noloshii daruuriga ahayd marka midkeeba marka waxa weeye markaad eegto arrimahaas sidaba waxa weeye xal looga gaari karayaa iska soo kooban ani waxay ila tahay horta maadaama oo labadoodaba ay madax banaanaanin inay wadanka jaga ka soo qabtaan tijaabi u baahan marka waxay u baahan yihiin in la tijaabiyo laakiin xagga corruptionka hadii la yiraahdo iyo xagga wax qabashada iyo xagga horumarka dhulka mataqaana dadka laga tiri badan ay degan yihiin oo aadna u qurux badan oo minority-ga waxaan u maleynaa labadooda haday isqabtaan nin walba hadda ballan uu bixiyo hadda ninkii ma hayna wali ma ay soo gelin laakiin xagga musulmaanka iyo waxyaalaha in mataqaana ninka la yiraahdo Raila inuu mataqaana horumarka aad ugu fiicnaan doono musuqmaasuqana la dagaalamo doono xagga tacliinta iyo xagga mataqaana wadooyinka iyo xagga wax badan oo ninkaas qaban kara ugu dambeystii dadka Soomaalida ina daawanay maxaad u sheegay dadka Soomaalida ina daawanaya anaga mataqaana dawladdan doorashadii hadda way dhacday Soomaalidu meel bay wada marto taa waan ogsoonahay marka dadka Soomaalida waxaan leeyahay wax badan ba anaga mataqaana aan ahayn wadanka raaciyadiisa nambarka 3 baan kaga jiri jiray nambarka 1 nimankaana ku jiri jiray anaga hatta labaad ma ahayn 3 aan ahaan jirin marka waxaan Soomaalida uu kula dardaarmayaa in mataqaana ay Ilaahay baryaan oo isku kalsoonaadaan oo midkii anaga dan ay noogu jirto ama danaheena fulunay in mataqaana ninka asaga uu soo galo waa inaan mataqaana ku duceysana aan isku dubnaan waatay aad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintii aanu markaasi idinka soo diyaarinay doorashada wadanka Kenya oo la rajeynayo in lagu dhawaaqo berri ama maanta kale ku xigta sida markaasi ay sheegeen guddiga doorashada wadanka Kenya waxay la falanqeynayay oo arrimahaas ka wareysanayay Dr. Umar Shariif oo isagu markaasi kamid ah aqoon-yahanada wadanka Kenya sababtaana arrimaha siyaasadda u dhundolo aad u mahadsan tahay Umar عليكم السلام ورحمة الله وبركاته daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukumo channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid